imid Somaliland sabab badan baa jira laakiin ta ugu weyn baa doonaya inaan idin sheego waxa weeye horta dee wax ka weyn markaad u timaado adiga qof aan wax ka weyn markaad u timaado laba amuurada kugu waajiba waxa kugu waajiba in degahaaga furto oo dhageysato waa wax ka weyn ayaa kooriyaan iyo inuu afkaagu xidhnaado oo attention-kaagu au saaran yahay ee waxa ka weyn ee ku hor yaala sidaad u fahmi lahayd ee u dhageysan lahayd waxa weeye muxuu yahay Somaliland waxay ahaan jirtay wadan ay ahaan jirtay intaan gobonimada la qaado wadan bay ahaan jirtay oo magac shalay muu dhalan mago qaran baa jira madax baa jira marka intaas baa aniga way iga weeyeen oo dadkii aniga ay dhalay jad on taaban karo halkay ku aasan yihiin ugu yaraan 200 sanadood ayaa ku aasan Soomaaliland magaalada Gabilaa agteeda ku aasan marka dadka dawlad sidaas iyo ummad sidaas iyo dadkii ku dhalay kuwii waqti hore tagay laakiin dhiigooda iyo maskaxdooda iyo ficilkooda uu kugu jiro markaad u timaado iyo ummadda ballaaran Somaliland ku nool aniga wax iga weyn marka waxa igu waajiba inaan darso inaan dhageysto inaan la sheekaysto inaan noloshooda siday tahay hamadooda siday tahay inaan si wanaagsan u fahmo wax badan xagga aqliga iyo maskaxda waan ka ogaa wax badan oo wadanka ka qoray professor arinteedu waxa weeye arin aan marnaba deyndaha laga qarsan karin anigu intaanan iman muddo badan waana la doodaa Somaliland oo xaq baan in la doodo waayo wadankan ku dhashay way wadankuna xaq buu leeyahay xaq baan ku leeyahay marka doodaas way noo socotay laakiin anu intaan hadlayay hadda dib u baadhaan wax garan doontaan in hal iyo jeer ku dadaaliyay adduunyada horta inay u garto Somaliland waxay qabsatay in loo garto oo meel kale loo soo marmarinayada direct loola hadlo dadkan waxay qabsadeen iyadoo adduunyada hareerahayga ka xigtay burbursan tahay burburayso waxay qabsadeen in loo garto deetana abaalkeygii la siiyo anu 20 sanadood ayaan arinta ka hadlay waana qorantahay waxaan maanta cusub oo soo saarayo ma aha waxaan sa jecelahay madaxda Somaliland iyo ummadda Somaliland warkooda horta inaan dhageysto waxaan idin war baan buuxa anigu wadankana war buuxa ayaa yaala oo ballaaran oo gundar deenin reerkiisii ku soo noqday horta inuu dhageysto reerkii waxay ku hadlayaan sida yihiin ayaa waajib ah aan wax ku qaato aniguna waxaan ku dari karayaa aan ku daro laakiin anigu kollayba Somaliland meel aan kaga tagi karaan ma jirto sida doontaba u dhacday adduunyadu dadkan soo hor fadhiya waa dadkii dhalay ambaan wada dhalanay marka wanaagooguna waa wanaaggeega dhibaatada qabsataana waa dhibaatadeeda weey